agaasimaha cusub ee isbitaalka guud ee magaalada Burco oo lagu soo dhaweeyay magaaladaasi. Hay'adda maareynta masiibooyinka Soomaaliya ayaa ka warbixisay xaaladii ugu dambeeyay fatahaadaha iyo daadadka El Niño ee ka geysteen gobollada Soomaaliya. Guddida joogtada ee golaha xildhibaanada deegaanka ayaa soo kormeeray goobaha adeeg bixinta iyo mashaariicda ka socoto ee degmooyinka Muyuqmulo iyo Qumbi. kulanti waxaan wanaagsan idin lahaantiinba kuna soo dhawaada saacadda warka duhurnimo aan ku bilaabay agaasimaha cusub ee isbitaalka guud ee Burco ayaa lagu soo dhaweeyay magaaladaasi. haddii aynu nahay bahda caafimaadka gobolka Togdheer waxaynu soo dhaweynaynaa agaasimaha cusub ee isbitaalka weyn ee magaalada Burco Dr. Cabdiraxmaan Dr. waxaan leenahay ku soo dhawow gobolka Togdheer ku soo dhawow bahda caafimaadka gobolka Togdheer insha Allah taala waxaan rajaynaynaa wada shaqayn fiican yeelano aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa waa mahadsan annagoo bahda caafimaadka gobolka Togdheer dhammaantayo uu hormuud noo yahay isuduwaha caafimaadka gobolka Togdheer Dr. Maxamed waxaanu si kaliya laabo u soo dhaweynaynaa agaasimaha cusub ee cusbitaalka weyn Burco Dr. Cabdiraxmaan Axmed Maxamed Dr. Warfa waxaanu leenahay agaasime ku soo dhawow shaqaale midaysan shaqaale ku jecel shaqaale ku soo baxay adiga runtii waa ku soo dhaweynaynaa si kaliya laabo baanu agaasime ku soo dhaweynaynaa diyaar baanu ku nahay gacmo furan iyo qalbi furan baanu kugu soo dhaweynaynaa waxaan halkan u joognaa inaanu soo dhaweyno agaasimaha cusbitaalka guud ee Burco Dr. Warfa agaasime ku soo dhawow magaalada Burco shaqaalaha iyo soo bixitaankaasi waa kalkacayl iyo soo dhaweyn fiican oo lagu hayo sida lagu soo dhaweeyay waxaan rajaynaynaa si la mid ah inaan kula shaqeyno si ka garab taagno tan waxay muujinaysaa in shaqaalaha inay goobta ku taagnaadaan bahliyowga iyo soo dhaweynta iyo qalbiga ku hayaan waxaan rajaynayaa sida ay maanta ku muujiyaan inay barina marka shaqada la wareegtay ay kula shaqeyn doonaan ku soo dhawow gobolka waa gobolkaagii waa goobaha aad ka shaqeynaysa goob la mid ah oo waqtiga badan aad ku soo bixisay adigoo takhasusay adigoo GB ba maanta waxaan rajaynayaa kulay markii hore bulshadii aad ku soo barbaartay ilaa yaraantii ilaa waxbarashadii ilaa inaad ka soo shaqeysay haddana imika waxaad sii wareegaysaa wadankii inaad ku soo wareegto oo marbaad gobol kamid ah oo ka shaqeynayso waa ku soo dhaweynaa waxaananu moodayn soo dhaweyntan intan leeg dhalinyaradii caafimaadka hablihii gabigiin inaad wada taagantiin haddaan moodayno waxaan soo bixi lahayn 6 iyo 7 iyo meelahaasaan soo bixiyay subaxnimo horta taa waad nagu gaadeen marka aad iyo aad baan arrinkaa idinkaga mahad celinaynaa hadalkuna waa inoo damayn doonaayo bari subax baynu wixii hadal ay soo dhan doonaaye hadda waa mahad celinuun anigoo wasiir ku xigeenkii hore waxbarashada iyo dhalinyarada ciyaaraha ahaana waxa aan Cabdiraxmaan maanta u soo raacay miisaanka uu ku leeyahay xaqii uu ka yimid ayaan u soo raacay waxa la socda intaas oo doctor shaqo lahaayo PhD iyo wada master ah ayaa Cabdiraxmaan la socda rag badanna waa ku taamayeen inay soo raacaan marka haddii alla ku rooyo gobolka aqoonta iyo gobolka raggu hadday ishelaan hore markii Soomaaliland ba halkaas ka bilaabanaya dhankiisana agaasimaha cusub ee isbitaalka guud ee Burco Dr. Cabdiraxmaan Axmed Maxamed Dr. Warfa ayaa ka mahad celiyay soo dhaweyntani ballaaran ee loo sameeyay dhammaan aad baad mahadsantihiin soo dhaweynta fiican ee noo sameeyeen runtii waxaan filaynaa ma ahayn waxaan lahayn in agaasimaha iskuduwaha gobolka iyo umba darkaysiin laakiin intaas oo shaqaale caafimaad in soo dhaweynayaan mana neebada kuma haynin aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin inagoo shaqadii ka yimiday oo hawlo badan yaaleen marka insha Allah hadalka iyo inoo dambeyn doona biidnilaahi waxaan rajaynaynaa saas ku duubantihiin ee u diyaartihiin shaqo in la qabtay bulshadana loo shaqeeyo biidnilaahi waxaan rajaynaynaa inaan saa wada shaqeyn doono hay'adda maareynta masiibooyinka Soomaaliya ee SOMDA ayaa ka warbixisay xaaladii ugu dambeeyay iyo dhibaatooyinka ay fatahaaduhu ka geysteen gobolada dalka Soomaaliya warbixinada ugu dambeysay ee saameynta El Niño ee fatahaadaha ee labada bilood iyo barka soo socday xoogii ugu dambeeyay iyo gargaarka ay Sodma ilaa iyo maanta ay fidisay ama ay qorsheynayso insha Allah inay sameyso
maalmaha isbuucyada ama bilaha soo socda insha Allah tiro dhan 114,965 qoys oo u dhiganta 686,790 ruux ayay hay'adda maareynta masiibooyinka gaartay xilliyadii fatahada El Niño ee isbuucyadii ugu dambeeyay iyo maalmihii ugu dambeeyay halka hay'adaha aanu shaqo wadaagtanahay iyaguna caawiyeen in ka badan 836,000 oo ruux haddii aan u dhigno maamulada iyo qaabkan u kala gaarsiinay maamulka ama dowlad goboleedka Galmudug waxaanu gaarsiinay 5,000 oo qoys oo u dhiganta 40 mitritan Hirshabeelle waxaanu geynay 6,000 oo qoys magaalada Jallaqsi oo qaybinteedu ay bilaabatay shalay maalmaha soo socdana aan rajeynayno inay dhamaato waxaan kaloo geynay 6,000 oo qoys magaalada Mahadaay oo iyadana u dhiganta 270 tan mitritan Jubbaland waxaanu geynay 53,334 qoys oo u dhiganta 2,400 oo mitritan Puntland 18,889 qoys wadarta guud ee aanu sodma geystay isbuucyada la soo dhaafay waa 83,223 qoys xaaladii ugu dambeeyay ee uu dalku marayo runtii waliba magaalooyinka aad ku sii daran siiba magaalada Ceelwaaq oo labada bilood ee aan soo dhaafnay biyihii iyo roobkii ku fatahay magaaladaas ee wali magaalada dhex fadhiyaan kumanaan kun oo qoysna magaalada isaga barakaceen raashinkii iyo agabkii kalena uu gabaabsi yahay xaaladeedan runtii aad looga soo deerinayo magaalooyinka sida Beledweyne iyo Gado Jubbada Dhexe Jubbada Hoose intooda badan waxa ay biyihii ka noqdeen laakiin waxa ay runtii saameyn meedan u geysteen dhammaan noloshii asaasiga ahayd una baahan qiimeyn rasmi ah in lagu sameeyo insha Allah xogta ugu dambeysay aanu ka helnay guud ahaan Jubbaland runtii waxay tilmaamaysaa in ilihii maciishada iyo hantidii oo dhammaanteedba burburtay 85% suuqyada ma shaqeynayaan 43,639 beeraley ah ayaa lumiyay dalagyadii beerahooda xilliyeedka ahaa 81,000 ka badan hektar oo ayaa daadad qaadeen tuubooyinka waraabka ee ah runtii Jubbaland 107,908 mitir ayaa burburay 276 ceel gacmeedna waa burbureen 672 kanaalada waraabkana sidaas alamida waa burbureen baar dheer waxaa ka dumay buundadii buurdhow buundada waa ka duntay bula guduud hal buunda ka duntay 12 buundo oo yaryar ayaa burburay una badan Jubbada Dhexe 203 xarumood oo caafimaad ayaa burburay guud ahaan Jubbaland 603 iskuul ama madrasooyin iyaga naftooda waa saameeyay waan burbureen 911 masaajidna way burbureen waxyaalaha sodma u qorsheysan maalmaha soo socda insha Allah waxaan rajeynaynaa in deeqaha naga soo gaaray in la gaarsiiyo dhammaan deegaanada ay saameysay fatahada El Niño haddii loo helo logisticskii suurtagelin lahaa hawshaas waxaan hadda bilaawnay howlaha soo socda qorsheynay in maalmaha soo socda waxaanu bixin doonaa ilaa 30 gaari kuna wajahan magaalada Buulaberde iyadoo loo qaybin doono ilaa 6,000 oo qoys 1,100 tan oo cunto ayaa waxaan u dirnay magaalada Kismaayo ee Jubbaland oo 24,445 qoys ay ka faa'iideysan doonaan insha Allah doontii koobaada guddida joogtada ee golaha xildhibaanada deegaanka ayaa soo kormeeray goobaha adeeg bixinta iyo mashaariicda ka socotay degmooyinka Muyuqmulo iyo Qubi ku jirnay haddii aan guddiga joogtada ee golaha xildhibaanada deegaanka kormeerkii iyo dabagalkii aan ka wadnay gobolkan Erar waxaan u kurgalaynay xooga saaraynay inaan kormeerno mashaariicaha kala gedisan ee ka socoto ama ka socdo gobolkani haday fulinayaan hay'adahan federaalku iyo hadii lagu fulinayaba heer deegaan sidoo kale waxaan u kurgalaynay maamulka Sooban iyo adeeg bixinta qaabka adeegu dadka uu gaaro waxaan soo booqanay mashaariic kala gedisan oo ka socoto degmadan Maymuluqo mashaariicdaasi waxay iskugu jireen biyo gelin
sida mashruuca biyo-gelinta degmada Maymuluqo oo aan shalay soo kormeeray maanta waxaan ku sugannahay degmada Qubbi waxaanu xooga saaraynay inaanu soo eegno mashaariicda ka socoto degmadani mashaariicdaasi waxaa ka mid ah dhismaha buundada isku xidho Qubbi iyo degmooyinka kale sida Fiiq oo la saarayo togan Ereed sidoo kale waxaan u kurgalaynay ama eegaynay dhismaha jidka isku xidho Haardhagax iyo Qubbi oo isagana in muddo ah socday sidoo kale waxaan soo kormeernay guryaha chiefka ama shaqaalaha dawladda caafimaadka health centerka caafimaadka loogu talagalay kuwaasi oo hadda gabagaba ah ayagana oo dhameystirmay waxaan kale oon booqanay ama xooga soo saarnay in aan soo eegno adeeg bixinta sida ay tahay iskuulaadka kala gedisan ayaanu soo marnay iskuulaadka ayaanu soo booqanay ardayda kala gedisan ayaanu u kurgalnay sidoo kale xarumaha caafimaadka xoolaha iyo kuwa dadka ayaanu soo eegnay qaabka adeegga u bixinayaan waxa kale intaan kormeeray xafiisyada degmada siday adeegga u siinayaan iyo sidoo adeeggu u socdo run ahaantii shaqooyin fiican oo la qabtay baa jira waxyaabaha hadda u baahan in la xoojiyo oo la dardargeliyo oo mashaariicdu ay ka mid tahayna waanu soo eegnay taasi oo mustaqbalka la rabo in la xoojiyo waxaanu kala hadli doonaa cidda ay khusayso ama xafiisyada fulinayo ayaanu kala hadli doonaa daawadayaal intaasi waxa ku eg saacadda warka duhurnimo warka dhigiisa amaana Allah